waxaad is leedahay hubka maanta dunida ugu culisay waa hubka nuclear, laakiin rumayso waa qaldan tahay. Hubka maanta si weyn loo isticmaalo waa hacking ama weerar ka saari kara waddan dhan khariidada caalamka. Haa, ciddaan ku hadlayno waad garanaysaa, waa hackeriska. Hackerisku maanta waa dadka ugu khatarta badan, uguna dhibka badan dunida ku noolnahay. Waxa suuragal ah haddii aan ku dhaho waddan weyn oo sida USA oo kale ah ayaa kaa baryaya oo kaa tuugaya kaliya si aad u joojiso dhibkaada wado. Si aad u ogaato heerka qisada leeg tahay, waxaan kaaga sheekeyn doonaa qiso dhacday. Hadday tahay markii ugu horreysay inaan soo booqatay, magacaygu waa Shaakir, waxaana soo gudbiyaa wax walba ku saabsan dunida cyberka si practical ah ood ku baranayso iyo si qiso ah. Hadday tahay markii ugu horreysay na soo booqatayna, subscribe dheh si aad ula socoto muuqaalada xiga. Telegram-kaygana waad iga soo raaci kartaa, waayo waxaan kusoo gudbinaa wax walba ku saabsan dunida cyber security. 10 sano ka hor, sanadu markay ahayd 2016, magaalo yar oo qabow, guri dabaq hoose ah iyo qoys yaroo iska caadi ah. Wiilkan ka sheekeyna maanta waxaan u bixinaa magaciisa Jacfar. Jacfar ma ahayn wiil buuq badan, dugsigu wuxuu ahaa mid aamusan, marka qaar xitaa lagu qoslo. Laakiin markuu guriga yimaado, dunidiisoo dhani way isbedeli jirtay. Qol yar iyo laptop yar duuga iyo hal yar oo nal u saaran ayuu dhex fadhin jiray. Inta badan carruurta da'diisa waxay ku mashquulsanaan jireen cayaaro iyo kubado. Jacfar haddaba wuxuu ku mashquulsanaa hal su'aal: sidee ayay dunidu ugu xidhan tahay hal shabakad? Hooyadiis mar walba waxay weydiin jirtay, wiilkaygiiow, maxaa ku haya? Maxaa kaa siya? Shaashadan habeenay dhagaa aad dul fadhido maxaa u sababa? Kaliya hal jawaab buu siin jiray: hooyo, dunida ayaan ku jiraa. 15 jir ayuu ahaa, balse fahamkiisu wuxuu ekaa qof 30 jir ah. Wuxuu bilaabay inuu barto sida xogta u socoto, sida seerfaduhu u shaqeeyaan, iyo sida nidaamyo loo dhiso. Laakiin ma ahayn burburiye xiiseynaya, kaliya wuxuu doonayay hal qalad yar ma ka dhigi karaa nidaam weyn mid istaaga. Maalin ayuu si lama filaan ah u arkay nuglaasho ama vulnerability, hadday cybersecurity garanaya, ku jirta nidaam isgaarsiin caalami ah. Ma ahayn wax la filayay, mana ahayn wax dad badan ay arkayeen, laakiin isagu wuxuu arkayay. Halkaas ayuu ka bilaabmay isbeddelkiisu. Subax caadi ayay ahayd, dadku way soo tooseen, shaqadii ayay u baxeen. Laakiin dhowr saacadood gudahood, qaar ka mid ah nidaamyada isgaarsiinta sare ayaa hakad galay. Warbaahintii ayaa bilaabeen ka hadlaan. Dalal awood leh sida United States ayaa waxay dareemeen in tani aysan ahayn cilad farsamo oo iska fudud. Haddaba kulan degdeg ah ayaa la iskugu qabtay oo la iskugu yeeray qolalka madow ee CID-da ee sirdoonka ee waaweyn ee USA ayaa la iskugu yimaaday. Shaashadihii waaweynaa waa la kiciyay, laakiin si loo baaro sababta ka dambeysay waxan oo dhan. Laakiin jawaabtu waxay noqotay wax aysan filayn marnaba oo maskaxdooda kusoo dhicin. Sababta oo ah hal IP address, hal qalab iyo hal qof oo laptop iyo wiil yar oo 15 jir ah ayaa la ogaaday. Haddaba Jacfar ma uusan ahayn burburiye xooggan ama wax badan muu burburin, ma uusan faafin sir, laakiin wuxuu diray fariin. Fariintaas waxay lahayd hal dalab: 15 trilyan oo dollar ayuu ku xidhay. Ka yar gacan kale ahaa, ma ahayn lacag uu filayay in la siiyo. Waxay ahayd fariin uu ku muujinayay, haddii aan rabo waan awoodaa lacagtaas inaan idinka qaado, sababtoo ah awood baan leeyahay maanta, xogtiina dhan baan gacanta ka hayaa. Haddaba warbaahintii caalamka ayaa qaraxday, baraha bulshada ayaa kululaaday. Qaar ba waxay iskugu tilmaameen argagixiso dijitaal ah, qaar kalena waxay ku tilmaameen mucjiso dhalinyaro ah oo nidaamka cybersecurity muujiyay. Hay'adaha amniga ayaa waxay bilaabeen raadintii ugu weyneyd ee cybersecurity taariikhda. Khabiiro ayaa la iskugu keenay, maalmo ayay qaadatay, habeenno hurdo la'aan ah ayay qaadatay. Laakiin khalad yar ayaa Jacfar la soo gabagabeeyay sheekadiisoo dhan. Hal meel ayuu Jacfar ku degdegay, hal raad oo yar. Taas ayaa noqotay bilowga dhammaadkiisa. Haddaba xilligii qabashadiisu waxay ahayd habeen roob leh oo albaabku mataqaan iska furnaa, ayaa albaabkiisa la soo istaagay. Hooyadiis ayaa furtay albaabkii. Kadib rag aamusan oo jaakado madow xiran oo CID-dii sirdoonka Mareykanka ahayd. Jacfar wuxuu ogaaday in waqtigiisii dhammaaday, amba sheekadiisii, ciyaartiisii, geemkiisii ay soo gabagabowday oo la fashilay. Markii la xidhay, indhihiisa wax cabsi kama muuqanba, sababtoo ah wiilka yar wax ka cabsaya ma jirto.
already wuu ogaa. Teeda kale wuxuu sii ogaa kan yari 15 jir buu ahaa. Sharciga USA amba reer galbeedkuna 15 jir ma wax raba. Laakiin 18 jir hadduu ka weynaan lahaa waxaa loo diri lahaa 25 sano oo xarig ah sababtoo ah wuxuu farala galay nidaamyadii ugu weynaa ee Mareykanka taasoo ka faa'iideysan karaan cadow kaste oo Mareykanka ka soo horjeeda. Haddaba kii yaraa ee la oran jiray Jacfar kan yar waxaa wiil yar oo indho adag sababtoo ah wuxuu farala galay nidaamyadii waaweynaa. Kan yar haddaba markii la baaray ee la soo ogaaday waxaa la ogaaday kan yari inuu 13 jir markuu ahaa oo programming yaqaaniba uu bartay language oo dhan uu bartay kadib 14 jirkiisina uu bilaabay hakankanba 15 jirkiisina sheekadan ayuu bilaabay in uu jabsado nidaamyada waaweyn ee USA Mareykanka. Haddaba maalinkii ugu dambeysay markii la soo xiray ee muddo dhowr cisho ah amba muddo u xidhnaa maxkamadii ayaa la soo istaajiyey. Maxkamaddii haddaba dad badan ayaa soo buuxiyey qareeno, wariyayaal, khubaro dhammaan waa la iskugu yimaaday sababtoo ah waxaa loo hanqal taagayaa kan yar siduu ku jabsaday nidaamkii ugu weynaa ee USA. Su'aalo badan baa la iska weydiinayaa sababtoo ah wiilkii wax caqliga galaya ma ahaynba. Wiil yar oo 15 jir ah anaga 15 jirkiina maanta waad ogtihiin wuxuu dhigtaa dugsiga hoose 15 jirka USA-na wuxuu jabsanaya nidaamyadii ugu waaweynaa ee Mareykanka sababtoo ah waxaan is dheernahay waxyaabo badan iskuma dhowina. Haddaba markii la iskugu keenay qareenadii, wariyaashii, khubradii, garsoorayaashii dhammaan markii la isku soo xaadiriyey ayaa su'aal khaas la weydiiyey. Su'aashaas oo ahayd Jacfarow sidan maxaa u samaysay maxaa kugu kalifay. Haddaba su'aasha qosolka badan ayaa ah oo ka yaabisay Jacfar wuxuu ugu jawaabay hal jawaab oo khaas ah si aan u tuso dunida ay ku xidhan tahay waxaan la arki karin hal qalad hal qof ayaa bedeli kara wax walba. Jacfar su'aashiisu su'aal la yaab badan bay ahayd si aan u tuso buu ku leeyahay dunida inay ku tiirsan tahay waxaan la arki karin hal qalad oo qof ayaa bedeli kara wax walba buu ku leeyahay. Haddaba qolkii oo dhan baa aamusay la yaabka awgeed keer wuxuu ku hadlay. Haddaba dunidu waxay bilowday inay maalgashi weyn ku samayso amniga cyber security-ga. Dugsiyo ayaa la furay, barnaamijyo wacyigelin ayaa la sameeyey, sidii dhalinyarada soo karaysay ayaa isla markaana iskugu dayay inay dowladda far la gashato. Qaar ba waxay yiraahdeen Jacfar wuxuu ahaa dambiile, qaarkana waxay ku tilmaameen inuu yahay digniin nool oo loo soo diray USA amba dunida daafeegaba. Laakiin hal shay ayaa xaqiiqo noqotay qarnigan hubka ugu awoodda badan maaha nuclear waa aqoon, waa maskax, waa qof ku fadhiya qol yar oo internetkiisa ah oo iska isticmaalaya laptopkiisa ayaa duni dhan baabi'in karaya ama burburin karaya oo farala gali karaya nidaamyada ugu waaweyn ee dowladaha. Haddaba su'aalaha la isweydiiyey ayaa ka mid ahayd haddii wiil yar oo 15 jir ah uu awoodo inuu dunida gilgiliyo ka warrama kumanaan kale oo maanta baranaya isla cilmiga cyber security. Su'aashu ma aha yaa haysta hubka ugu weyn, su'aashu waa yaa haysta aqoonta ugu dheer sababtoo ah cyber security dhinacna waxaa lagaga adeegsan karaa dhinaca xun, dhinacna waxaa lagaga adeegsan karaa dhinaca fiican sababtoo ah dowladaha laftirkooda ayaa isticmaala cyber security oo ku tiirsan oo aad iyo aad u ilaashada. Maalmo dhow waxaa jira xataa dhalinyaro gabadh waxaa jirtay la oranayay Yaasmin Cabdi oo ahayd gabadh 850 user oo Snapchat xogtooda u ilaalisa. In Cabdishaliil Show la soo dhigay muuqaalkiisa kadibna falcelin badan laga celiyey. Gabadhaas waxay ahayd in wallahi laga yiraahdo Su'aal Xajaabo sababtoo ah 2024 waxay joogtay Soomaaliya oo mataqaan naxeedan waxay hagaajisay dharkeeda iyadoo labisan oo asturan bay matay ayna jeedisay muuqaal dheer oo sharaxay cyber security. Cyber security maanta waxyaabo ugu badan waxa weeye dunidan ay ku socoto ay ku kala hagayso weeye. Soo haddaba qarnigan 21aad dalal badan ayaa ku faanay hubkooda nuclear laakiin khatarta kale ee aamusan ee koratay ee aad u kordhay waxaa ka mid ah cyber security. Khatar aan lahayn taangi, gantaal amba ciidan. Haddaba haddaad ilaa intan nala soo gaadhay subscribe dhe waayo waxaan soo gudbinaa si practical ahana iyo si qis ahaanaba insha Allah inta rabaanta lagu gada jirana taxane dheer ma soo dhigi doonaa si practical na taqaani faahfaahin doonaa Telegram-keygana waad iga soo qaban kartid linkiga profile-ka saaran waa dashboard-kii meel walba iga soo qaban kartiin. Thank you guys.